lix rag oo burcadbadeed ku xidhnaa jasiiradda Seychelles ayaa maanta laga soo dejiyay madaarka Boosaaso iyagoo xabsiga inta uga hartan ay ku dhameysan doonaan xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso. taliyaha ciidanka asluubta Puntland iyo saraakiil ka tirsan ciidamada asluubta oo la socday maxaabiistan burcadbadeedka ayaan wax faahfaahin ka bixin. waxayse qayb ka noqonayaan maxaabiistan tiro maxaabiis burcadbadeed oo ku xiran xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso, kuwaas oo dhawaan wakiilka qaramada midoobay oo qaabilsan bini'aadanimada ku soo booqday halka ay ku xiran yihiin burcadbadeedkan oo intooda badan ka soo jeeda deegaanada Puntland. burcadbadeedkan intooda badan ka soo jeeda deegaanada Puntland ayaa fursad u helay booqasho kooban oo ay ka helaan eheladooda. fursad si kastaba ahaatee burcadbadeedkan inta badan lagu qabto xeebaha Soomaaliya ayaa waxa gacanta ku dhiga maraakiibta ajaanibka ee iyagu inta badan sheegay inay ilaaliyaan xeebaha Soomaaliya. Ahmed Sham, Home Cable TV, Boosaaso.